waxaanu joognaa nin xanuunsanaya oo Cabdulaahi Cali Shida la yiraahdo oo muddo 7 sano xanuunsanayay xanuunkaas oo la yiri dalka gudihiisa waxba lagama qaban karo meel wax lagaga qaban karo dalka Hindiya ayaa ugu dhow qarashka lagu kacay ee lagu qali karaana waxa weeyaan $20,000 baa la yiri sidaa darteed ninku waa nin miskiina oo waxba haysan oo hanti lahayn ehelkiisuna aan waxba hayn marka dadka bulshada Soomaaliland iyo dadka Islaamka ee muxsiniinta waxaanu ka codsanaynaa ninka xanuunsanaya in la soo caawiyo oo xanuunkaas soo wadnaha ah oo qalitaan la yiri uu u baahan yahay oo dawo waxba ka tari mayso ayaanu bulshada Soomaaliland iyo dadka Islaamka ee muxsiniinta waxaanu weydiinaynaa in ninka la soo caawiyo halka waxa yaalo waraaqihii dhakhtarku uu soo qoray oo iyadoo markaasi iyo qiimihii iyo wixii ay ku kacisay halka ay ehelku soo cadeeyeen waa walaalkeen wuxuu u baahan yahay in xanuunkaasi walaalaha muslimiinta meel kasta joogaan in laga qayb qaato oo laga caawiyo runtii waliba wixii uu geystay ilaahay agtiisa ayaa uu ku leeyahay wallahu fi aawni al-abd ma kana al-abd fi aawni akhihi inta aad walaalka u gargaartaaba adigana ilaahay ku gargaaraya wa taawanu ala al-birri wat-taqwa wa la taawanu ala al-ithmi wal-udwan waxa wanaagsan isu kaashada waxa xun haysu kaashanina baa ilaahay ina yiri waa walaalkeen kurbad baa haysa dhibaato haysa xanuun adag baa runtii haya xanuunkaasi waa wadnaha waa ogtihiin waa xubinta kaliyateen una soconno hadii xanuun naga dhacanayna markaas uu kacayn marka walaalayaal meel kasto joogtaan rag iyo dumar dibad iyo gudo muslimiinta caalamka oo dhan walaalaha Soomaaliyeed oo dhan waxaan aad idin ka codsanaynaa in walaalkeen soo caawisaan